هذا كل أفسح نصم بالسنة البيل بانو بلاوي تراته هو ينا يضنا وشي لا يسوي وقاته بيل كذا هو ما شاء الله رزق ورزق marka waxay dhahday hooyaday hawaanba hadaadan aadada tirisid ma naqaano gabadhi been baan sheegay waan dhaartay walaal hooyo mawdiro san nisanka igu damisay waxay dhahday marka hal bil baan isnahay hooyada inay soo degto san ka roonaato telefoon ha u dirin bal ka yaraan haddana sidaan ka amsay hooyadii waxay tideen way ka sii dartay dadka u diray waxa ku dhahay hooyaday anigu bil aabay ma diro waxba aabay ma siiyo ninba wax ku siiya waxa dirtana diyaar baa ku lahay hooyay cashi maamadu waxa sidna casinayo anigu ma habaarayo oo habaar ma habaarayo laakiin waxa casisi ah oo la dhaxyaan gabadhayda ilaa odayga ay biilka goyso uma sax ku noqon karna inta odayga silsilaysa marka gabadha shaqo ooysa waxaan ma garna xataa mar dhaxdiyaad waan baxayaa dadada hooyaan siliya hadda maamadii nasaan ilaahay aqbal maxaa diinta ay ka qabtaa gabadhana calolxumo aad u weynaysa hooyadina way diiday ilaa odayga biilka laga tiro unba imaraysa inta unba nadiif ku noqon karaa ama hay maanta mayada ay taalla xaqiiq madina dhahta gabadha way xanuunsatay shaqo una soo jiray insha allah tacaala marka waa kaa intaasaan qabaa su-aasheeda labaadna waxa weeyaan shaqo أنا صامن هذا اللي يقول لها إسمك حتى يا دكتور اللي يقولها لأن الدكتور اللي يقولها حتى واحد صامن هاي يعرف يا دكتور الصامن هاي بس واحد يستفسر كذا أنا كعرفوني هيك اللي يقولها أنا دور حبة برنين إلى عشر حبة ما تصام كذا لما هذا كان عرفه إن شاء الله أنا كان صامه لما كنت المدن واحد يسوي عليها يوقف كسون كسور وإكذب حيسه مركا أنا ساعة يستي الحاكي الشخص اللي واحد سنة طبعا كان دم عرفت أنا عرفه وش لا كسرني أنا عرفه لي أي اللي يقولها لا يقولها أنا ما أعرف يعني كان أنا في قبل حدث إن شاء الله تعالى أفرح بالي ولا أفكر أنا ما كان جل شيء كبس إن شاء الله دي لا إله أنت صار ولا شيء أشتاق الله الحمد لله وكفى صلاة والسلام على عباد الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله labada su-aasha koowaad ku saabsan gabadha hooyadeed ay tiri markay ogaatay inay aabaheed wax u dirto ay tiri beri baan ka ahay dad aabaha wax siisa aniga hooyo kuu noqon maayo oo hadda saa ay ku kala aamusan yihiin oo tiri waxa qura ee anigan hooyo kuugu noqonayaa waa inaad aabaha goysaa arrinkaas waa arrin baadila weeye yeeli mayso gabadho waa adigoo yiraahdo salaad haddaad tukato aniga shaqo kuguma lihi macnaha aabaheed inay wax siiso aabba la-aan inantu ma noolaan karto ilaa aabbay leedahay ilaahay baa aabba siiyey hooyadaa le aabbihii ku dhalay ha salaamin oo waxba ha siin haddii kale muxarim baad iga tahay ibliis baa ku dhex jira warkaasina waa war ibliise maaha war ilaahay iyo rasuulkii iyo dadka muuminiinta ah waalidka iska daa wax kale hadduu ilmaheeda dilo labada qof in laysu qisaasin weeye hadduu aabbahaa ku dilo aabbaha la qisaasi maayo maxaa yeelay aabbahaa isaga ayaa iftiinkan inaad joogto sabab kugu ah adigu sabab ugu noqon maysid xataa dhiiggaaga hadduu daadiyo in dhiiggiisa la daadiyo iska daa wax kale sidaa daraaddeed walaashaas hooyadaha hadday hadda dhimanayso iyo hadday noolaanayso kuma xidhna inaad aabbaha goyso aabbaheed ma goynayso hadday isleedahay kala sasaboo ha u sheegin odayga iyo hooyada ha isu sheegin mid walba gaarkiisa u xusi xaq bay u leedahay si xidhiirkoodu u hagaago way ka qarin kartaa aabaheed mar haddii hooyadii ay dhaqankeedii diineedu sidaa noqday oo maaragtay ay dee wareereyso inta ay diinta ilaahay fahmayso way ka qarin kartaa laakiin
inay intay amarkeeda qaato tiraa hooyaha tira abba waxa u diri maayo ilaahay raallaanshiisa ku heli mayso. ilaahay raallaanshiisa waxay ku helaysaa oo saxa inay hooyadeedna xidhiidhiso aabaheedna xidhiidhiso. diintuna waa intaa. haddii hooyadeed imaka ilmo 100 jir ay dhalayso inay ilaahay daacadiisa ay maartay iyada daraadeed u goyso oo aabaheed xumayso arrinkaas ka xaaraan weeye. rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam la daa'ata al makhluuq fi ma'siyati al khaliq. qof ilaahay abuurtay ilaahay shay macsiya oo xaaraana laguma adeeco. marka qosaasha hore waxay ku dhamaatay hooyada ku adeeci maysid ilaahay caasi. aabaha ha la hadlin oo xasiin waa ilaahay caasi. ilaahay baa ku amray inaad aabihi hooyaba xidhiidhiso. ilaahay quraanka wuxuu yidhi fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqadicuu arxamakum. ma mudantiin haddaa ilaahay caasidaan oo diinta ka jeesataan inaa waalidkiin goysaan iyo qaraabadiin. ulaa'ika aladiina lacanahum allah. kuwa ilaahay caasiya ee waalidkood gooye iyo qaraabadoodu waa kuwa ilaahay lacnaday. fa asamahum wuu dhaga tiray wa acmaa absaarahum wuu indha tiray. indhayo dhigatoona male aakhiro. marka gabadhaas waxaan leenahay inaad hooyadaana wax siiso aabahana wax siiso baad ilaahay raallaanshiisa ku helaysaa. laakiin hooyadaa inay ku tiraahdo aabaha ma soo hadal qaadi kartid waa camal ibliis. camalka ibliiskana lama adeeco. su-aashaas halaasay ku dhamaatay. wallahu aclam. sheekha waxay dhahday telefoon markaan telefoonka igu dhimanaysa mar walbana gabadha